السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن صاحبتي إذا شرفت له يقدر وانا يا برت يوتيوب كأحمد بقية يبراه برشدة ما أنت هكذا واحد يكون المردون إن شاء الله وررك هو وينها كدعي دلك جرمل كي يدعو ينكي لقد واجلي إن شاء الله waxaan isku dayi doonaa inaan idin dedejiyo si dhaqso ah warka idinku soo tabiyo isla markaasina aan xogaha aan idin hayo halkan si degdeg ah idinku soo tabiyo maadaama dhowr war oo kala duwan aan idin soo jeedinayo faahfaahintooda uma gelayo kaliya waxaan idin dulmari doonaa dhacdooyinka idinka ayaa sii raadsan doona haddii aad su'aalo qabtaana dhanka commentiga ayaad igu qori doontaan insha Allah qodobada wararkeena aan ku soo qaadan doono waxaa kamid noqon doona kulankii shalay ee Angela Merkel iyo 16 maamul goboleed qodobadii laga soo saaray ku ugu muhiimsanaa ayaan insha Allah ku eegi doonaa sidoo kale waxaan ku eegi doonaa dadka ka shaqeeya shaqooyinka madowga ah tiro kamid ah dadkaasi oo la qabtay magaalooyinka lagu qabtay iyo mawduuc arrintaas ku saabsan ayaan falanqeyn doonaa sidoo kale waxaan eegi doonaa ganaaxyada ay xukuumadda dowladda Jarmalka ay soo saartay kulankii shalayna ka soo baxay ee ahaa dadka maqaaxiyaha taga isla markaasna magacyada beenta ah ku qorta ama goobaha kaleba magacyadooda la diiwaan geliyo isla markaasna magacyada iyo adreesada beenta ah ku qorta lacag ganaaxa oo dowladda Jarmalka markii hore 50 euro shalay ahaa balse gobolada maamul goboleedyada kala duwan dalka Jarmalka qaarkood warar cusub maanta soo saaran iyagoo lacagahaasi lacaga ka duwan ku dhawaaqay sidoo kale waxaan eegi doonaa shirkadii ku hawlanayd soo saaridda talaalka xanuunka coronavirus ee dalka Jarmalka oo wajigii labaad u gudubtay qodobada kale wararkeena maanta ku eegi doona waxaa kamid ah xisbiga midigta ayaa mid kamid ah xubnaha xisbigaasi ayaa waxa uu sheegay hadal aad uga yaabgeliyay guud ahaan dadka Jarmalka isla markaasna warbaahinta dalka Jarmalka aad u hadalhaysay kaasi oo ku saabsanaa in qaxoontiga la ururiyo isla markaasna la laayo lana gubo qodobkaasi ayaan falanqeyn doonaa insha Allah sidoo kale waxaan eegi doonaa kulan maanta Angela Merkel iyo baarlamaanka dalka Jarmalka dhex maray qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan warkeena maanta insha Allah ku falanqeyn doonaa ee soo dhawaada mar kale halkaad iga daawanaysaan waa barta YouTube-ka Axmed Baqaye iyo baraha bulshada fadlan haddaad nagu cusub tahay oo aad hore nooga mid ahayn subscribe dheh channel-kan sidoo kale sii share garee siina gaadsii saaxiibadeena kale ee jecel inay la socdaan wararka iyo dhacdooyinka ka dhaca gudaha dalka Jarmalka intaan wararkeena maanta u gelin waxaan eegaynaa kulankii maalintii shalay ahaa ee dhex maray Angela Merkel iyo 16 maamul goboleed ee dalka Jarmalka kulankaasi oo duhurnimadii maalintii shalay ahaa ka dhacay gudaha dalka Jarmalka isla markaasna ay ka soo qayb galeen 16 maamul goboleed madaxdooda iyo Angela Merkel ayaa waxa laga soo saaray go'aano ay kamid yihiin intaan go'aamada idin sharaxin marka hore xaalad Angela Merkel ayaa waxa sheegtay in xaaladda coronavirus xilligan hadda aynu ku jirno ilaa inta qabowaha la gaarayo ay xaaladdu aad u sii kici karto isla markaasina ay xaaladdu sii xumaan karto waxayna ka urursan tahay in wajigii labaad uu mar kale ka dilaaco gudaha dalka Jarmalka go'aanada laga soo saaray kulankaasi ayaa kuwa ugu muhiimsanaa waxaa kamid ahaa in iskuulada iyo kindergartenadu ay sidoodii hore u sii shaqeeyaan oo wax isbedel aan lagu sameyn ama aan la xidhin in dadku ay sharciyadii coronavirus sidoodii hore ugu sii dhaqmaan isla markaasina wax isbedel ah lagu sameyn in dadka maqaaxiyaha ama goobaha cuntooyinka laga cuno baararka taga in haddii ay magac been ah ku qortaan ama address been ah ay qortaan lagu ganaaxi doono 50 euro oo lacag ah sidoo kale waxa laga hadlay xaaladda aroosyada iyo xafladaha la qabanayo oo dadka xafladahaasi aroosyadaasi ka soo qayb galaya tiradooda arrintaasi oo aad isugu khilaafsan yihiin maamulada iyo xukuumadda ayaa tirada ugu badan ee xukuumaddu sheegtay ay tahay in 50 qof aanay ka badnaan karin dadka banaanka xafladaha ku qabsanaya balse gobolada ayaa ilaga laftooda ku kala duwan oo qaarkood tiro intaas ka badan macquul tahay inay shaaciyaan qaarkoodna tiro intaasi ka yar wixii xog ka soo baxay insha Allah waad la socodsiin doonaa isla markaasina halkan aad hadda iga daawanaysaan ayaad kala socon doontaan qodobkaasi haddaan intaas kaga gudubno waxaan eegaynaa xisbiga midigta ee dalkan Jarmalka xubin kamid ah xisbigaasi ayaa waxa uu sheegay hadal la yaab geliyay isla markaasina warbaahinta dalka Jarmalka aad u hadalhaysay waxaana hadalkaasi kamid ahaa in dadka qaxoontiga ah ee dalkan Jarmalka imanayaan laga saaro dalka sidoo kale wuxuu sheegay in meel lagu ururiyo isla markaasina la gubo lana laayo xabada la dhaco la gubo hadalkaasi aad runtii dad badan fajac geliyay inuu qof Jarmalka jooga isla markaasina madaxda Jarmalka kamid ah xisbiyada kamid ah sharci dejintii kamid ah in hadallada noocaasi ku dhawaaqi karo ninkaas magaciisa waxa la yiraahdaa Christian insha Allah wixii xog ka soo kordhanaya waa idin la socodsiin doonaa Angela Merkel ayaan mar labaad dib ugu laabanaynaa kulan maanta ay ka horjeedisay xildhibaanada baarlamaanka ee dalka Jarmalka ayaa waxa ay hadaladii ay halkaasi ka jeedisay Angela Merkel kamid ahaa xaaladda
xaalad xun baan ku jirnaa ayay hadalladoodii kamid ahaa. qodobada ugu muhiimsan hadalladeeda ayaan soo qaadan doonaa. safar dheer ayaynu ku jirnaa muwaadiniin ahaan Angela Merkel iyo dhammaan muwaadiniinta dalka Jarmalka muwaadiniin ahaan waa inaynu iska kaashanaa xaaladda coronavirus iyo xaaladda guud ee dalka, dhanka dhaqaalaha, horumarinta dalka, ixtiraamka sharciyada coronavirus loo soo dejiyey, iyo weliba ilaalinta iyo horumarinta dalkani Jarmalka. khatar ayaynu ugu jirnaa ayay tiri coronavirus wejigiisii labaad inuu mar labaad dalkan Jarmalka ka tilaaco, kaasi oo bilowgii sanadkan 2020 si xun dalka Jarmalka uga dilaacay. ayaa waxay sheegtay in cabsi weyn ay ka qabto Angela Merkel in sanadkan wejigiisii labaad isla sanadkan mar labaad inooga dilaaco, iyadoo aad looga warwar qabo xaaladda coronavirus ee xilliga qaboobaha oo ah xilli dadku inta badan hargabyo ay ku dhacaan, hawadu ay iska xun tahay, cimiladu ay bedelan tahay, taasoo ay macquul tahay in xaaladda coronavirus ay aad usii kordho, maadaama oo jawigana uu yahay jawi qabow. virus kasta oo lagu neefsada hawada waqti dheer kusii jiri karo, taasi ayaa warwar dheer ah laga qabaa. nolosheeni way soo laaban hadalladeedii kamid ahaa inay sheegtay in nolosha dalka Jarmalka ay soo laaban doonto sidii hore aan baararka u tegi doono, maqaaxiyaha inagoo kooxaha ka cuntayn doono, xaflada samaysan doono, nolosheenii sideenii hore dib uga soo laaban doonto. balse waa inaynu samarnaa ayay tiri oo aynu u dulqaadanaa xaaladda xun ee hadda aynu ku jirno. mid ka mid ah xildhibaanadii ay hadalka ka horjeedinaysay maanta Angela Merkel ayaa waxaa Angela Merkel halkaasi uga soo jeediyay dhaliil, isagoo ay sheegeen Angela Merkel inay albaabada u furtay qaxoontiga dalka Jarmalka, isla markaasina qaxoonti fara badan oo dalka Jarmalka ay kusoo deysay, qaarkoodna ay soo qaadatay. qaxoontigaasi ayuu sheegay inay dhibaato ku hayaan dalka Jarmalka, isla markaasina ay dilal, dhacdooyin iyo dhibaatooyin fara badan ka geystaan gudaha dalkan Jarmalka. dabcan waad ogtihiin qaxoontiga dad yar oo xun ayaa ku jira, laakiin qof kasta oo qaxoontiga oo dhibaato geysta qaxoonti le waaye. qodobkaas intaas kaga gudbaynaa. waxaan eegaynaa qodobkaasi qodobka xiga. inta badan waad ogtihiin dalka Jarmalka waxaa ka jira sharci xaaraantinimeynaya, isla markaasina mamnuucaya in qofku uu ka shaqeeyo shaqo madow ama shaqo aanay dowladda ogeyn. shaqadaasi dabcan qofka shaqadaas ka shaqeeya ma bixinaya lacag cashuura, lacagta caafimaadka ma bixinaya, waxyaabo badan ayaanu bixinayn, taasi oo khasaaro fara badan xukuumadda Jarmalka iyo dowladda federaalka iyo maamulada iyo dhammaan dadka cashuurahaasi ay kasoo galaan dhibaato ku keeni karta. haddaba dad la qabtay oo shaqooyinkaasi madow ka shaqaynayay ayaa maanta lagu qabtay gudaha dalka Jarmalka. magaalooyinka dadkaasi lagu qabtay ayaa waxaa kamid ah magaalooyinka Frankfurt, Hamburg iyo München. shaqooyinka madowga oo keliya dowladda Jarmalka waxay ku khasaartay 3.5 milyan oo euro khasaare ayaa qasnada dowladda Jarmalka kasoo gaadhay, maadaama dadka shaqooyinkaasi qabanaya aanay ahayn dad dowladdii wax dhaqaalaha ku celinaya, dhaqaalaha ay soo qaateen iyagu jeebkooda ku shubanaya, taasi oo lacala haddii ay dhibisood kasoo gaadho xitaa ay dowladda ka bixinaysa daawadoodii, dowladdii naftoodii, dhaqaalahoodii iyaga siinayso, sidaas si lamid iyaguna ay lacago kala shaqaysanayaan. marka qodobkaas intaas ka gudbayna. waxaan eegaynaa dhanka ganaaxa ay xukuumadda Jarmalka maalinta kulankii shalay ahaa laga soo saaray in 50 euro lagu ganaaxi doono qofkii magac ama adress been ah ku qorta goobaha uu tegaya ee magaciisa iyo macluumaadkiisa laga rabo. ayaa goboladu ay aad ugu kala duwan yihiin. caadiyan 50 euro ayay ahayd kulankii shalay lagu soo saaray ee xukuumadda iyo maamul goboleedada, balse gobolka Nordrhein-Westfalen ayaa waxa uu sheegay in 50 euro aanay ahayn lacag badan, isla markaasina ganaaxaasi aanu ahayn ganaax aad u adag. waxaanu sheegay in 250 euro ku ganaaxi doono qof kasta oo arrintaasi ku kaca, isla markaasina magac ama adress been ah qorta. sidoo kale gobolka Schleswig-Holstein ayaa isaguna xaaladda kor u sii qaaday, isagoo qiimaha ganaaxa ee dadka magacyada beenta ah sheegta, isla markaasina magacyadooda iyo adressadooda aan sida saxda ugu qorin goobaha laga rabo, isla markaasina la doonayo in xanuunka coronavirus haddii qof ka mid ah dadka halkaas yimaada ku dhaca lala soo xiriiro. uu isagu sheegay inuu 1,000 euro ku ganaaxi doono qofkii magac ama adress been ah qorta. haddaba Schleswig-Holstein isagoo xaaladiisu kor ayuu sii kacay. fadlan iska ilaali inaad magac, adress ama number been ah ku qorantid, taasi dhibaato ayay kugu keeni kartaa. xaaladda coronavirus aan ku wada jirno inta badan qodobadanu ka hadlaynay ay u badnaayeen, bal haddaba talaalkiisa halkuu maraya waa arrin aad isu weydiinaysa runtii, mudana in la xuso. waa rajada keliya aynu leenahay, ilaahay ka sokow, ilaah baa mar keliya naga wada qaadi kara, wax dhibaataa ma laha. laakiin rajada bini'aadanka oo gacanta ku hayo ilaa hadda aynu sugayno waa talaal in xanuunkan loo helo, isla markaasina aynu nolosheena dib ugu soo laabano. haddaba shirkadda CureVac ee ku taala gobolkaasi Thuringen ayaa waxa ay bilowday wejigii labaad
tijaabinta tallaalka xanuunka coronavirus. imika xaaladii way bedeshay iyadoo 290 qof oo caafimaad qaba isla markaasina kamid ah dad kasoo jeeda wadamada Peru iyo Panama ee aan ahayn dalkan Jarmalka ay tallaalkaasi ku tijaabin doonto. inta badan wadamada Jarmalka oo kaliya maaha wadamo badan oo Yurub iyo Mareykanka kamid ah ayaa waxa ay tallaalka ay soo saarayaan ku tijaabin kaliya dadkooda iyagoo wadamo badan oo Asia, Latin America, Africa iyo wadamo kale oo dunida kamid ah u qaaday tallaalkooda isla markaasna ku soo tijaabiyo. hore waxay ogaayeen wadamo badan oo Africa oo wadanka South Africa uu kamid yahay in shirkado kale ay tallaalka tijaabintiisa ay ku sameeyeen. haddaba shirkadan ayaa waxay aaday wadamada Peru iyo Panama iyadoo 290 qof oo caafimaad qaba ku tijaabin doonta tallaalka wejigii labaad ee tallaalkaas. haddii wejigaasi labaad guuleysto isla markaasina lagu guuleysto waxay u gudbi doontaa wejiga saddexaad iyadoo 3,000 oo qof ku tijaabin doonta. haddii wejigaasina uu guuleysto innaga ayaa noqon doona dadka sida tooska u qaadan doona. waxaan rajaynaynaa Jarmalku inuu noqdo wadankii labaad ee soo saara tallaalka maadaama wadankii koowaad uu Ruushku qaatay inkastoo aan dawadiisa la hadda la isticmaalin oo Ruushka kaliya laga isticmaalo laakiin wadamada kale laga isticmaalin. haddana weli wax cadi kama soo bixin in guul daraysatay iyo in lagu guuleystay inkastoo kamid yahay wadamada xaaladda xanuunka coronavirus aad u saameeyay wadanka Ruushku. sidoo kale qodob kale oo xasaasi ah ayaa jira isla markaasina aad u qosol badan. sanadkan waxa la sheegay in haynta lacagaha ama ishbaarinka wax la yiraahdo lacag dhigashada dadka Jarmalka ku dhaqan ay aad kor ugu kacday. sababta sanadkan dadku dalxiis yama aadin dadka caadiyan cadaanku marka ay shaqeeyaan shaqooyinka xilliyada samarka oo kale lacagahooda dib ayay ugu ciyaaraan safarray ku baxaan oo ku baashaan gaadiidda la iibsadaan nolosh dadka gabadhimay iibsan safarramay aadin lacagaha bangiyada la dhigtay iyo lacagaha guryaha la dhigtay ayaa aad u fara badatay cadaanka macnaha. haddii aad kamid tahay dadkaasi Soomaali ahaan fadlan xagga hoose commentiga noogu qor oo sanadkan lacag badan ku dhigantay mid ka duwan wadamadii sanadadii hore. waad mahadsantihiin saaxiibadeyda sharafta leh ee halkan iga daawanaya war wixii aanu dal iyo dabadba aanu idinka haynay intaas ayaan ku safmeerinaa. hal shay barnaamijkeennii ayaa inoo soo socda baro Axmed Baqaye oo aan diyaarintiisii dhammaystirkiisii aan kusii jirnay isla markaasina duubistiisa kaliya noo hadhay. haddii ay su'aal maskaxdaada ka guuxayso isla markaasina jeceshahay inaad su'aalna la wadaagtid fadlan dhanka Instagram-ka Axmed Baqaye ayaa ku qoran ku soo qor halkaasi su'aashaada insha Allah waan kaaga soo jawaabi doonaa. waad mahadsantihiin toddobaadkan gudihiisa ayaa barnaamijkaasina dhowri doontaan. waad mahadsantihiin saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan daafada dacwada waa caalamka waa Axmed Baqaye idin leh isma dhaafno.